Taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland Faysal Cabdi Bootaan oo muddooyinkii u dambeeyayba kormeeraysta jooga ku mariyay fadhiismaha ciidanka qaranka Soomaaliland ay ku leeyihiin Bariga Gobolka Sanag ayaa shacabka deegaanada Bariga Gobolka Sanag ku bogaadiyay sidii ugu heelan yihiin nabadgelyada iyo xasilinta iyo wada shaqaynta ciidanka qaranka Soomaaliland. Nabadgelyo waxaanu gaarnay degmada Yube iyo deegaamada ku hareeraysan dadweynaha dadka deegaanka jooga dad aad iyo aad u wanaagsan. dhammaan waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaa dadweynaha gobolka Sanaag bari jooga ee baran iyo wixii lamida oo nabadgelyadooda aad u ilaashanaya ciidamada jooga jiidahaas boqolkiiba aad iyo aad bay wanaagsan yihiin fariimo badan iyo hawlo badan oo ku saabsan nabadgelyada ayaan aad uga hawl galeen qoladii wasaaradda waxbarashada iyaguna Sanaag bay ka yimi baranka yimi oo soo qaybiyay manhajkii buugaagta iyo hawshoodii shaqana waanu ku kulanay yibaan ku kulanay waajibaadkoodii way soo guteen dhankiisana waxa halkaasi ka hadlay oo bogaadiyay ciidanka qaranka Soomaaliland agaasimaha waxda hantida maguurtada ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo hariya habeenba u heegan ilaalinta amniga waxaan leeyahay waajibkiina qaranka aad gudateen Taliyaha Faysal si fiican baad hawshaada u gudatay waan idinku mahadnaqaynaa sidaas la mid ah wasaaradda waxbarashadu malaawan idinka dheeraynaa ciidanka meel walba anana sidaas aanu gaadhnaa tuulo waxaanu ka nimaanta gobolka baran waxa joogay ciidankii cutubyo kamid ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad bay noo soo dhaweeyeen ciidanku nala shaqeeyeen waxa kamid ciidankan halkaan uga kulmay guri Cismaan Saalax waan hambaliyana wada dirayna ciidanka qaranka halkaan ku kulanay markaan shaqada ka soo laabanay waxa weeye waa Yube kormeerkii si fiican u wadaan waxayna noo ballan qaadeen xilli kasta oo u baahnayna garabkayga taagay Adnan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamiga Horyal 24 TV Bariga.